الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللحاد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. باب كان شيخ وهذا ليا وحكم عابي مداخل الشيطان على الإنسان وما ينجيه منها. مداخل الشيطان على الإنسان إنسانكو shaytaanku meelaha uu qofka ka soo galo bini aadamka shaytaanku halkuu uga yimaadaa maxaase ka badbaadin kara oo sidee buu qofku uga badbaadaa shaytaanka insaanka ibnuljawsi raximahullah baa wuxuu lahaa insaanka wuxuu u soo galaa uu shaytaanku sidiisaba wuxuu qadarka uu qofkaasi غفلة وكسوغن يهي يجهلي وكسوغن يهي إلهي سبحانه وتعالى انتو هالمانسان يهي كل بقدر كذا أيو يسونا كسو ليرذا. ابن القيم رحمه الله وحولي مركو أغاذي عدو إلهي وإبليس إنو قفك الله سبحانه وتعالى قلبي جيسا وكوي يهي دينتو أيو وسواس كطوريا ها وسواس بوكسو جيديا shahawaad buu u soo jiidayaa wuxuu u qurxinayaa wax walba oo dariiqa saxiixa ka celiya wuxuu siinayaa asbaab badan oo dhumitaankiisa qayb ka qaadata oo tawfiiqdii in la waafajiyo wax wanaagsan ka celisa xarkaha shaytaanka waxa la yiraahdaa buu u raaricinayaa kuwaas u diidaya inuu istiqaamo iyo toosnaan uu ku socdo. al-imaam xasan al-basri rahimahullah baa waxa la weydiiyay أينام إبليس بالوري إبليس ما سيحضا وحول لو نام لوجدنا راحة هدوبا نقص يحن لها والراحة يسان لهين إبليس هدو نقص يحن لها وبالراحة يسان لهين با مركا ما سيحنا يوي يقفك مرول با إنو رميو اسكو دايا هذا بالشيطان كو مقلا ليدا قلبك قفك إلهي ذكري يسا qofka aqoonsan yani qalbiga uu gala waa qalbiga ka maran dhikriga ilaahay iyo cabsida iyo ikhlaaska iyo yaqiinta laakiin qalbigu haduu ku camiran yahay iimaanka ilaahay iyo cabsidiisa dhikriga ilaahayna uu ku dhowrsoon yahay fala yakunu lishaytaani alayhi sultaan wala sabiil shaytaanku wada uu umaro heli maaya marka maratibta hadaba ama shaytaanku qaababka uu qofka u dhumiyo waa maraatib dhowr jaranjarooyin iyo qaybo waxa jira uu marka ugu horeysaba uu rabo inuu ku guuleysto hadaba midda ugu weyn martabada ugu weyn uu shaytaanku raadiyo waxa weeye martaba la yiraahdo inuu qofka gaalnimo u ku rido iyo shirki haduu midda ku guuleysto inuu qofka xaqa garab mariyo uu gaalnimo ku rido waa midda markuu ibliisku seexanayo oo uu ku guuleysanayo hadafkiisa ugu weynaa uu ka raaxaysanaya tacabkiisa dhibaatadii waana meesha uu socdo weeye wuxuuna ka yeelayaa qofka jundigiisa iyo askarta ciidankiisa iyo xisbigiisa shaytaan buu ku darsanayaa marka iyaga waana midda ka dhagaysa inuu noqdo mukhallad macahu fi naar isaga iyo shaytaanba qofka marka ay naarta ku wada waaraan arintaas kufriga iyo gaalnimada waxa looga badbaado waa cilmigii aan ku jirnay in la barto bil aqeeda al-islaamiyya saxiixa diinta wanaagsan la barto taasana ka badbaadinaysa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala hadii qofku uu ku guuleysan waayo shaytaanku gaalnimada wuxuu isku dayayaa inuu bidca qofka ku rido bidcadaasana waxaad ogaataa ka weyn fisqiga iyo macaasida iyo kabaa'irta kale oo dhanba midda ka weyn waa bidcada inuu qofka ku rido maxaa jira qofku wuxuu moodayaa inuu cibaadaysanayo oo ilaahay wuxuu raali ka yahay oo siinayo oo samaynayo laakiin wuxuu ku socdaa meel aan alla raali ka ahayn meel garab marsan kitaabka alle iyo sunnada rasuulka daahirka wuxuu u malay inuu alle u dhawaanayo laakiin alle uu ka fog yahay sayi'aad iyo xumaan buna urursanayaa dambi buuna ku jira uusan ka toobad keenaynin marka mukhalaf oo khilaafsan rususha wadadoodii iyo wixii diinteenu ay la timid wax garab marsan maxaa jira waxa la yiraahdaa dunuubta kale iyo macaasida waa laga toobad keenaa oo qofku wuxuu yahay inuu wax ku jiro laakiin midaan lagama toobad keeno qofku wuxuu moodi inuu wax fiican ku jiro waxa looga badbaado midaana
والعلم بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سنتنا وأبسيطك يلديدك بالعادة كسهر جيدة أرنتا صدحات oo iyadana uu isku dayo waa kabaa'irta inuu qofka ku rido kabaa'ir inuu ku rido kabiira dambi weyn uu ku rido iyadoo kala duwantaasina marka kabiirada markuu qofka ku rido ayuu qofkiina dunuubta waxyaabihii kalena way u sahlanaanayaan qiso waxaa dhacday baa la yiraahdaa saxaabigii la oran jiray Cabdullah ibn Hudhafa Sahmi markii reer Room loo diray ayaa waxay isku dayeen inay raqaa'ib waxyaabo ay ku jecel yahay qofku ay tusaan ama wuxuu necib yahay oo cabsi geliyaan wax walba way isku dayeen markay kari waayeen xaqiina kalloodin waayeen ayuu nimankii kula taliyeen la taliyaashiisa ahaa ninkan haweenay qurux badan ha loogu geeyo xabsiga labadooduna keligood ha noqdaan caawa albaabkan ha loo soo xiro sidii bay sameeyeen marka wuxuu yiri